bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka bilowday magaalada Nairobi ayaa socon doona muddo dhan 3 maalmood waxaana ka qayb galaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi iyadoo sidoo kale qaybaha kale ee bulshada ee Soomaalida ay ku wada nool yihiin magaalada Nairobina ay goobta ku soo bandhigayaan macluumaad ku saabsan dhaqamadooda. barnaamijkan oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Nairobi isla markaana ay soo qaban qaabiso xarunta dhaqanka aw jaamac Umar Ciise ee xaafadda Islii ee Soomaalida ayaa waxa maalmaha uu socon doono ka faa'iideysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi. toddobaadka dhaqanka iyo aqoon isweydaarsigu wuxuu u baxaa 2 qaybood. qaybta koowaad waxa weeye dhalinyarada wax baraa. marka dhalinyarada intaana wax barin waxaan weydiinaa waxyaalaha ay rabaan inay bartaan. sanadkan markii aan weydiinay dhalinyarada waxay dhahan waxaan rabnaa hidaha dhaqanka waxyaalaha inaan barano, waxaan rabnaa inaan photography barano si aan community-ga wax uga bedelo, waxaan rabnaa inaan barano siyaasadda Kenya iyo si u kala qaybsan tahay. soo marka hore maaragtay qaybtii hore waxaan sameynay sibinaaro 4 bilood soconayay oo aad iyo aad runtii dhalinyarada u bedelay oo maaragtay ay dhalinyarada photography-ga oo xataa waxay soo sameeyeen sawirro badan oo ay xaafadahooda rabaan inay wax uga bedelaan. halhayska bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxaa loogu magac daray wada shaqayn waxaana sidoo kale ku jirta qaybo dhanka dhaqanka ka kooban oo lagu wacyigelinayo qaybaha bulshada Soomaalida ee ka soo qayb galaya bandhiggan. toddobaadkan wuxuu sanadadii hore uga duwan yahay waxaan qaadanay halhayska ah wada shaqayn dadku iyaga oo kala fikir duwan inagu Soomaali baan nahay Soomaalideena markaan hoos ugu soo dego waxaan u kala duwanahay ama reer ama wax qabiil la yiraahdo ama fikriyado siyaasadeed ama xitaa maamul iyo waxyaabo sidaas laakiin inagu saa u kala duwan waxa jira waxyaabo ina mideeya. qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ee ka qayb galaya bandhiggan ayaa si weyn u soo dhaweeyay bandhigga toddobaadka dhaqanka Soomaalida ee ka furmay magaalada Nairobi. magacaygu waa Faadimo Maxamuud Muuse. barnaamijkan waa bandhig every year la qabto sanadkii waana sanadkii 3aad ee la qabanayo waana bandhig yani lagu xoojinayo dhaqankeena. magacaygu waa Daawud Macruuf waxaan kamid ahay dhalinyarada qaban qaabinaysay barnaamijkan sanadlaha ee Somali Heritage Week ahmiyad badan buu leeyahay. ahmiyadaha waxaa kamid ah wuxuu naga saacidayaa isdhexgalka bulshada iyo arrimo badan oo ay kamid tahay youth-ka iyo in la dhiirigeliyo iyo magacaygu waa cusub waxa weeye waxaan ahay haweenada baraamburka tirisa waxaan maanta halkaan u imid culture-ka Soomaalida sida hidiya dhaqankeena aad arkaysaan oo sharafta leh inkastoo Soomaali meel ay joogto isku dhaqan tahay waxaana ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu hambalyeeynayaa hidiya dhaqankeena. si kastaba bandhiggan ayaa inta u socdo waxaa maalin walba lagu soo bandhigayaa qaybaha kala duwan ee dhaqanka Soomaalida iyadoo sidoo kale goobta ay ku sugan yihiin dad ku xeeleer arrimaha suugaanta kuwaas oo soo bandhigaya qaybaha kala duwan ee suugaanta Soomaalida. Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.